وين سلام أصحابي وأنا جوا بيرت وصور هذا برنامج كان يسمى شاكو شاكو أنا waxaan helay nin iyo ubax haddaan beerana waxay noqonayaan ubaxyo qurux badan oo aniga iga khaasa waan ku salaamay beert maxaad gacanta ku haysataa alla biko waxaan helay nin iyo ubax waanan beerayaa si ay igu noqdaan ubax qurux badan xageed ku beeraysaa iniinyahan ubaxa miyaad haysataa dhoobkii ubaxa dhoob ubaxa alla maya ma haysto hawalwalin beert aniga haysta dhoob ubax oo aan waxba ku isticmaalaynin waana ku siinayaa ee wax yar isug waa kan waad ku beeran kartaa gudihiisa alla aad baad u mahadsan tahay biko ubaxayga waxaan ku beerayaa dhoobka aad i siisay ubaxan quruxda badan waxaa isla yeelanaya aniga adiga haa waa runtaa ubaxan wuxuu inaga dhexayn doonaa aniga iyo adiga allaalkeen ka helnaa dhooba iyo saalo la'aantood ubuxu maba baxaye biko waad saxan tahay waxaan u baahannahay dhoobo iyo saalo balse halkee ka helnaa waxay caawimaadka u baahan yihiin baad ka caawiya waxaa sameeya hadduu imika qalinkeesa hoos ka dhaco iikam hadduu ikaraado waa u keena wuxuu iga baahan yahay in laga caawiyo uu rabo ayaan ka caawiya waa caawiya fiiri beert elmaa soo socdo bal isaga aan weydiino waxaa laga yaabaa inuu inaga caawiye waan ku salaamay beert waan ku salaamay biku allah dhoob qurux badan oo ubax bad halkan ku haysataa soo dhawow elmo kani waa dhoobkii ubaxa ee biko waxaanan doonayaa inaan ku beeray iniinyahan ubaxa balse waxaan u baahannahay dhoobo iyo digo ma garanaysaa meelaan ka heli karno dhoobo iyo saalo elmo beertoodaa laga helayaa dhoobo iyo saalo ku fiican in lagu beero ubaxa elmo waad ku mahadsan tahay maadaama aad inoo keentay saalo iyo dhoobo hadda ubax wuu inoo bixi karayaa elmo maadaama aad nala beertay ubaxa hadda wuu naga dhexeeyaa saddexdeenaba allah elmo wuu jecel yahay in la iskaashado elmo biku iyo beertiba waxay isla beerayaan iniinta ubaxa alla hadda waa inaan sugno inta uu ka soo baxayo geedka waa maxay beer ubax baynu ilawnay haa biko waynu beernay iniinta balse waxay u baahan tahay biyo iyo cadceed si ay u noqoto ubax qurux badan allah elmo taas kamaba uusan fikirin hadda biyo xaggee ka helaa alla waa roobe aan ka galno guriga alla fiiri roobkii baaba ku daayay ubixii alla fiiri qorraxdiina way soo baxdaye alla saaxiibayaal wakhti ayay qaadasay balse ubaxeena waxa uu noqday mid aad u qurux badan wah elmo wuu jecel yahay inuu ursado carafta ubaxa waan iskaashannay oo ubaxana waynu isla beernay haddana waxaa inoo soo baxay ubax qurux badan aynu wadaagno talaa asxaabteenna kalene sidaan oo kale misu kaashadaan allah waa su'aal aad u wanaagsan biko haddaba aan u dirnay erni inuu keeno su'aasha jawaabteeda erniyow waa idin salaamay saaxiibayaal eerni ayaan idin jooga haddaba maxaan idiin qabtaa maanta ma soo weydiin kartaa saaxiibadeen inay weligood wax iska kaashadeen allah waa su'aal aad u wanaagsan balse raadintaada waxaan ogaan doonaa in yar kadib tadaa waa mar kale iyo anigoo ah eerni oo ka socda sisimi sheeko
wiilasha iyo gabdhaha halkaa ku wada ciyaaraya ayaan waxaan weydiinayaa su'aal. Haya, waa idin salaamay. waan kaa qaaday Erni. magacaygu waa Shucayb. aniga magacaygu waa Maryama. anigana magacaygu waa Xaniifa. waan ku faraxsanahay la kulankiinna. waxaanu imi inaan ogaado in saaxiibadayda kale ay iska kaashadaan shaqadooda si ay u fuliyaan. maalin maalimaha ka mid a ayaan waxaan rabnay inaan ku ciyaarno shax beerta, laakiin nooma dhammaystirnayn wixii shaxda lagu ciyaarayay. haddaba kadib maxaa samaysay? saaxiibaday ayaan iskaashanay. mid wuxuu keenay dhagaxdii, midna wuxuu noo jeexay shaxdii. kadib waxaan ciyaarnay shaxdii oo waxay ahayd maad. shaqa wacan dhammaantiin. haya, adiguna Maryama? waxaa jirtay mar aan keli dugsiga wax ugu baran jirnay. wayna nugu adkayd inaan casharada fahamno, laakiin ani iyo saaxiibahay maxaan samaynay iskaashi. waxaana bilownay inaan wax isla akhrino oo aan iscaawino. hadda si fiican ayaan wax u fahamnaa, waynu noo fudud yahay casharku. oo sidee? maadaama oo qof walba ugu fiican yahay maado, waan iscaawinaa oo waan isfahamsiinaa. allah, taasi waa shaqo wacan. si qurux badan ayaad u dhigtay. haya Xaniifa, adiguna sidee ayaad u kaashataa saaxiibada? maalin ayaan biyo ka soo buuxiyey baaldi weyn, balse waan qaadi kari waayey. waxay caawisay saaxiibaday. 2 baaldi baan ku kala qaybinay biyihii, kadib waan qaadnay. si fiican. waxaad adeegsatay farsamo heer sare ah. mar labaad waad ku mahadsantihiin maadaama aad iiga jawaabteen su'aashayda. waad mahadsan tahay Erni. waan idin salaamay saaxiibayaal. waa aniga Abi. ku soo dhawaada barnaamijkeenna Sisili Sheeko iyo xarafka maanta. xarafkeenna maanta waa sa. waxaana lagu dhawaaqaa sa. saacad. is aragtid damboo xiise leh saaxiibayaal. alla waan helay. waa sariir. waxaa meesha wax ka bilowda xaraf kasta. sawirna wuxuu ka bilowdaa sa. waa saxbiku. haddaba asxaabay, ma garanaysaan erey kaloo ka bilowda xarafka sa? haddaba maxaa kaloo ka bilowda xarafka sa? waan idin salaamay asxaabay. waxaan ahay ilmo hooyadiis. maanta waxaan idinku luuqayn doonaa hees aad u macaan. waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan. in laysla shaqeeyo waa maadiyo muhiim. mar walbo iskaashanna waynu ku faa'iidnaa. waa inaynu istaakulaynaa mar walba iyo meel kasta, waayo iskaashiga hawsha ku fududaata. ka warrama carruuray, ma ka hesheen heestayda? waan ogahay inaad u bogteen. waan idin salaamay. waa mar kale iyo saaxiibkiin beert. ku soo dhowaada ciyaartii beert. maanta waxaan idiin hayaa ciyaar aad u maad badan. waxaana la dhahaa sheeg dhawaqa shimbirtaan. haye, diyaar ma tihiin? haye, waa si wanaagsan. waxaan idiin sharaxayaa sida loo dheelo ciyaartan. marka hore si fiican u dhagaysta dhawaaqa, kadibna sheega shimbirta ay tahay. waa goorgoor. waad saxdeen. haye, sheega shimbirta sidaan u cida. waa qoley. waa sax. aad baad u taqaanaan sida loo sameeyo dhawaqa qoonleyda. haye, dhagaysta codkaanna. haye, tilmaam baan idin siinayaa. shimbirtan inta badan waxay ku nooshahay guryaheenna agagaarkooda, sida geedaha, saqafka iyo wixii la mida. dadkuna waxay siiyaan haruurka. qoortana waxay ku leedahay tusbax. waan garanay, waa axmaal. alla waa Erni caagiisii booloboolada. haya Erni. haya dhammaantiin, caagayga boolobooladu waxa uu samaynayaa dhawaqa kwakbiju. haddaba hadda aynu wada samayno codka booloboolada saxda ama celal joogta. haye, diyaar ma tihiin? aynu bilowno. mahadsanidin saaxiibayaal. runtii aad ayaan ugu raaxaysanay. waan idin
waxaana la soo gaaray xilligii tirada maanta. Tiradana maantana waa 5. haddaba aan tirina inta jeer ay haysa gumaysto. hagaag haddaba tirada maanta waa 5. ayo waa saxbiibku. haddaba saaxiibayaal aan wada tirino. allah digaagu maba xaroonaya. elmo anaa kaa dheereeya anigu aan xareeyo. alla maba xaroonayaanba way adag tahay in la xareeyo. waan kuu sheegay biku aad bay u adag tahay. elmona wuu isku dayay in badan maba xaroonayaanba. elmo iyo biko maxaa inku dhacay oo aad la neeftuuraysaan? habar yar waxaan isku dayayaa inaan digaaga xareeyo laakiin way adag tahay mana xaroonayaan. waa runteed biku hooyo. elmo iyo bikuba way isku dayeen in badan balse wayba xaroonba waayeen. wiilkaygii elmo way adag tahay inaad keligaa samayso. sidaa habar yar waxaa fiican adiga iyo biku inaad isla xaraysaan. biku adiga geeskaa ka soo celi. elmo adiguna geestaa kale ka soo celi. elmo wuu ka helay fikraddan fiican hooyo. elmo iyo biku si wada jira ayay u shaqaynayaan. elmo geestaas ayuu ka soo cayrinayaa bikuna geestaas kale. hayaan bilowno. digaagani wayba dhib badan yihiin. alla sug. ugu dambayn way xaroodeen. hooyo elmo iyo bikubaa si wada jira u wada xareeyey. shaqo wacan waan inii sheegay inaad hawshan wadajir ku qaban kartaan waayo gacmo wadajir bay wax ku gooyeen. habar yartani waxayba ahayd mahad. haa hadda kadib haddii ay shaqo inku adkaato waa inaad iskaashataan. hadda aynu nasanno oo biyo cabno. wadajirka iyo isla shaqaynta ayaa wax lagu wada qaban karaa oo la isku kaashan karaa. wax walbana lagu xallin karaa. awood iyo farxadna waa lagu dareemaa. gacmo wadajir bay wax ku gooyaan. wadajirka iyo isla shaqaynta ayaa wax lagu wada qaban karaa oo la isku kaashan karaa. wax walbana lagu xallin karaa. awood iyo farxadna waa lagu dareemaa. gacmo wadajir bay wax ku gooyaan. asxaabay maanta aad ayay u wanaagsaneen sisima sheeko waayo waxaan baranay inay fududaadaan wixii si wada jira loo qabto. haddaba saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin sida aad noo caawiseen. maantana waxaan barannay xarafka san. haya asxaabay ma xasuustaan lambarkaani maanta. lambarka maanta wuxuu ahaa lambar 5. waad ku mahadsantihiin sida aad noogala qayb qaadateen barnaamijka sisima sheeko waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. intaaynu ku kulmi doonno qaybta xigta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. nasiixada maanta waalidiinta qaaliga ah biyuhu waa shay dhif ah nolosheennuna waxa ay ku tiirsan tahay biyaha. waa inayn u sheegnaa carruurteenna in ay kaalintooda ka qaataan kaydinta biyaha iyaga oo xidhaya tuumbooyinka kadib marka ay isticmaalaan marka ay cadaysanayaan ilkaha oo ay dhaqanayaan gacmahooda iyo wejigooda. carruurta qaaliga ah ujeeddooyin noocee ah ayaad u isticmaashaan biyaha? naga soo waca nambarka watsapka noogana soo jawaaba su'aashan. waxaad noogu soo gudbin kartaan nambarkaas afkaartiinna iyo soo jeedintiinna. waxaanad ka dhagaysan kartaan barnaamijka sisami sheeko etoobiya radio fana soomaaliya star f m kenya star f m